Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan uga hadli doonaa Japanese candlestick ama jaantuska Japaneeska. Qaybtan ugu horeyso waxaan uga hadli doonaa sababaha loo adeegsado Japanese candlestick, aasaasyaasheeda iyo sidoo kale faa'iidooyinkeeda. Marka laga hadlayo Japanese candlestick, sababaha loo adeegsado waxaa ka mid ah in ay tahay dhammaan midda loo isticmaalo trade-yada caalamka ka dhaca. sidoo kalena waa mid aad u fudud in la fahmo, waxayna aad ugu xoogan tahay market diagnosis ama falanqaynta suuqa, looking market psychology, waxayna ku tusaysaa cilmi nafsi ahaan market ama suuqa. Analyzing price action, waxay ku analyze garaynaysaa ama ku falanqaynaysaa price actionka ama dhaqaaqa qiimaha leh. Best point reversal, waana mid aad ku tusinaysa isbedelada dhacaya. Refining by generation, waxaa cadeeyay generationo badan taasoo ay adeegsadeen. Waxay ku siinaysaa powerful buy and sell signaalo aad u xoogan oo ah buy ama sell. sidoo kale waa simple to use, waana mid aad loo fahmi karo. Universal applicable, waana mid aad loo wada adeegsado dunida oo idil, waxaa adeegsada professionalska caalamka oo idil, waxayna leedahay history aad u dheer oo ah 2 qarni. Proven and time testing, waana mid la cadeeyay xilli ahaan iyo waqti ahaan, waxayna ku siinaysaa ama ku dhisaysaa kalsooni aad u xoogan marka la joogo suuqa sarifka lacagaha qalaad. Waa kuma aasaasiyaasha Japanese candlestick. Monehisa Hama, intii u dhaxaysay 1724 ilaa 1803, waxa uu noqday father of candlestick chart ama aabaha jaantuska ee chartiyada. Authorka waxa uu qoray book lagu magacaabo The Fountain Gold ama Ilayska Dahabka, taasoo uu sii qoray The Three Monkey Record of the Money ama 3 daanyeer ee lacagta, sanada markay ahayd 1755. Yin micnaheedu waxaa loola jeedaa bear market, Yang waxaa loola jeedaa bull market ama suuqa markuu yahay uptrend ama bullish. Monehisa Hama waxa uu ahaa ganacsade caan ah taasoo ka ganacsada bariiska, wuxuuna caan ka ahaa Japan. Candlestick have history of predict, waxa ay leedahay taariikh iyo asal. Most successful price action trade, sidoo kale waxa uu ahaa mid aad ugu xoogan successful price action trade, wuxuu ahaa mid aad ugu xoogan in uu ganacsado ama uu helo price actionada suuqa. Market psychology expert, sidoo kale waxa uu ahaa mid expert ku ah psychologiyada ama qaab dhismeedka suuqa. Taariikhdan in joogno Japanese candlestick, waa kuma aabaha modernka ah ama aabaha cusub ee Japanese candlestick. Steve Nixon waxa uu soo bandhigay Japanese candlestick Western World ama dunida galbeedka sanada markii ahayd 1989. waxa uu qoray book lagu magacaabo best seller, taasoo lagu magacaabo Japanese candlestick charting techniques. waxaa la gatay ama la koobiyay kumanaan koobi taasoo ah dunida oo idil. Steve Nixon waa best trainer of Japanese candlestick, waa kan ugu wanaagsan ee tababara Japanese candlestick. Steve Nixon waxa uu dhahay people know is candlestick, dadku way garanayaan candlestick, but they don't know how to use them correctly, balse ma yaqaanaan qaabka loo adeegsado ugu wanaagsan. Waa maxay faa'iidooyinka Japanese candlestick ama jaantusyada Japaneeska? Spot market reversal, waa mid aad u fudud inuu ku tuso isbedelada suuqa. Cut losses short, waa in suuqu wuxuu ku siinayaa in aad losseskaada isla markii aad jirtid. Multiple profit, in aad laba jibaartid faa'iidada. Right market trend, waa inaad raacdaa trendiga ama meesha uu suuqa u socdo. sidoo kale waa inaad ka fogaataa bad tradeska ama tradeada xun. Book profit early, in aad faa'iidada ka qaadatid mar hore. Precise market exit, waa inaad sheegi kartaa xilliga aad suuqa ka bixaysid. Understanding market psychology, inaad fahmi karto psychologiyada suuqa. Understand who is the controlling market, sidoo kale waa inaad fahmi kartaa yaa controlaya ama maamulaya suuqa. Simplify trading analyzing, waa inaad kala saari kartaa analyzing trader. Trade confidently and fearlessly, waa inaad u trade gareyn kartaa
si kalsooni leh oo aan wax cabsiya ku jirin. Determine entry exit stop loss and stop loss level. waa inaad determine gareyn kartaa ama sheegi kartaa meesha aad ka gelaysid, meesha aad ka bixaysid, stop losska meesha aad dhiganaysid. Trade an instrument, cash feature and option. Okay, faa'iidooyinkeeda kale waxaa ka mid ah inaad trade gareyn karto time frame, xilliga waqtiga ugu munaamsan. Sidoo kale waa inaad yareyn kartaa riskigaada, waana inaad increase gareyn kartaa ama badin kartaa success rate-kaada ama heerka guushaada. qaybtan waa qaybta ugu horeysa ee aan kaga hadlay introduction-ka. qaybaha soo socda waxaan kaga hadli doonaa suuqyada kandhalada u sameysmo iyo magacyadooda iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.